كلمة عوان كذا أي تهاي همرجون يعني إن شاء الله تعالى هل دونا ولكن دكتور أحمد يماني وهو يمد ودن كأمريكان كا يا أبو بكر محمد إن شاء الله تعالى هل دونا وحي تهاي همرجون لا تحزن ما أنت وعلى صعوتان دبعت بدن مش معك نواجهه سايكولوجي ما شاء الله تعالى وضرب بدن يوحي لمدة يعني قف كستمانت وحوالينا يا سيد وفرح لها وكعر يا وحيته مربته يويرك والبهارك يعني أسير وعلينا يا نور وناكسن قفك مربته يعني أدوس كفوجيو يعني وحي جالسين يسا وحيته هاي وحو ناكسن runtii kitaabkaas haddaa aqrisid waa aada ugu farxaysaa waa kitaabka ugu taabicaad badan kitaab gaal iyo kitaab muslim waa kitaabka kaliya ka taabicaad badan waa kitaabka quraanka waa kitaabka labaad oo ugu taabicaad badan waa taas waxay ku tusaysaa marka dadkii inay u baahan yihiin barnaamijkaas inay u baahan yihiin ibn qayyim rahimahullahu ta'ala hadal aad u qiimo badan wuxuu yiri afar arin jismigay dishaa afar arimood jismigay dishaa waxyaalaha jismiga dina waxaa ka mid ah alham wax ugu horeeyo uu keenay waxa waa ham qofka murug inay ku dhacdo fiiri qofka markuu murug u timaado ama walwalo ama walbahaaro maxaa ku dhacayo maskaxiyan qofkii wuxuu noqonaa madluum u noqonaa jismigan au jeedan walaalayaal waxa xukum waxa ruuxa wax ibn aadan kan ninka ugu xoog badan ama ninka ugu lafta weyn haduu inta taagan yahay hadii nafta ka baxdo hal mar dhulka ku dhaca ruuxi waay marka waxa jirada ay ku dhacayso jiradana laba qayb waa jirana jismiga ku dhacdaa jirana ruuxi ku dhacdaa xusniga marka kuma dhaco jismiga kuma dhaco meel dhakhtar aad tagaysid oo lagu daaweynayo Thailand oo lagu soo qorayo ama Bristol intii isticmaashaan lagu soo qorayo ma ahan ama cirbad lagu siinayo ma ahan wadamada gaalada waxay ogaadeen qofku uu qaba waa stress waay waa la dejinaa bas waxa la dilaa qaybtii tafkiirka la dilaa لأن سأقولنا ابن آدم سد حديد أجوا وين وحولية حديدنا وحاول فين على ديق وقاضى حدرنا وحاول آر رواية وهودي أكسجين كجسم وقاضى حديدنا وحاول نيرفي جوا مرك أي واحد دجينا وحاول نيرفي دجينا قف مرك نيرفي اللي قد دجي مرك محو سمينا إحساس بدل ما لهانا لكن قفك معناه هذا ما إنه عافي ماذا ما أحن إنه عافي ماذا ما جردان مركا أو ليراه والول كليراه أما مروك تليراه جرة جسمي وكل عظم أهان مركورو إن داود اللي أجاد وحلو بان أصلا جسمي إن دايجنوس اللي وسميه اختار مركا أو تكتيد وحنوصل مركا تريد هوري داو كامسينا he wants to know what you have okay محاكو داعي سؤالو ينبضنو كويدينا انت أصلا وحورا إنه سميه تشخيص وحكوها إنه أجادو سوكوسي داود كوجو مناسب سن والول كان مركا أما قفك مروكتان كل عيس جسمك كم دعاء وحي كل عيس الروح ذي كل عيس محا كانوا وحي وجوين وكانوا وحي solution كوراكين ودين دونا محا كانوا وحا كانوا وجوين وحاوي نقص الإيمان قف كان إيمان كيسنو هو صدع سأقولنا أهل السنة والجماعة إيمانك يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمانك ابن آدم كرو كعاء طاعة كرو كعاء معصية وسوكعاء markastuu qofka iimaankiisa kor aado markastuu farxad ku noolaanayo waa farxadu ku noolaa qof mu'min waay farxadu ku markastuu iimaankiisa hoos u dhacane waa markastuu adduunyada uu ka fikirayo maxaa imaana marka mushkilada adduunka ku furmayso adduunka walwalkii wuxuu bilaabaa marka inuu fikiro maxaa dhacay see wax u dhaceen marka wuxuu ku keenaa fikir ziyaado ku keenaa musiibada dibka ugu horeeyo oo keena walwalka keena waxa waay ضعف الإيمان keeno دبك الله بعضه كان وحواي عدم الرضا بالقدر إلهي سبحانه وتعالى قدر وسميه أنه يرى أنه لصوبره أركان الإيمان ما قاوى لحواي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر طيب تقدم باسم حاوى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ثيري أهانا أصوق هذا ثيري وحضر عنه لسوسي لكن كل نقطة محل قد أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحكستك وضعه الدنيا أنت جوت expect everything إنه وضعه وحول باكو ودعي كرو خير يشر وكو ودعي كره وكو ودعا مرك وحلو بهايه إن اعتقاد وحي كو ودعينه هديه شرواي هديه شرواي قفك مسلم كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كي سوا وحوي عجبا لأمر المؤمن قفك مؤمن كأرنتي سان ليابي إن أمره كله خير قفك مؤمن كوحكستو كدع خير واي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته صوح وناك صندوق سراء شكر
khayraa ku dhacay wuu mahadceli wuxuu ajru helay وإن أصابته ضراء صبر dhibaa ku dhacay wuu sabri fakaana khayran lah marka qofka mu'minka labada marbo ay khayr ay ku tahay qofka markay ku dhacdo dhib ku dhacdo macnaheeda ma inuu ilaahay ku nacban yahay dadka qaar kooda waxay leeyihiin ani maxaan sameeyay dhibkan igu dhacay maxaa ilaahu dambi wallahi weligay dambi ma sameeyay dadka qaar kooda ku soo wacay masaakiin dumarka u badnaadaan sheekhu wallahi dhibaa ay hayso wallahi weligay ani dambi ma gelin saama sameeynin macnaheeda ma dhibaa kugu dhacay macnaheeda ma ina dambi gashi ma ahan maahan waa xawaay rasuul sallallahu alayhi wasallam noo sheegay laba xadiis uu sheegay wuxuu yiri akthar almu'miniina ibtilaa'an dadka ugu badan la ibtilay waxa al-anbiya anbiyada billahi alaykum just think about it nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa qofku ilaahi abuuri qofka ugu fadli badan ugu fiican ugu sareeyo shaki ma leh rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ana sayyid walad adam wala fakhr ولد آدم سيد كذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالله عليكم تسير نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقريه عائشة وحلا سدح مال رسول صلى الله عليه وسلم أنت كما درجن باهي وعلوشي صدق وحرتي ماشي وكل شتي على جرع دي إنه سان أفيري مركو كبحها إنه سان أفيري وحول والله مكوي وأكو جعله حديثا دتك إيجاب بحيانا كما بحين ولا لا دقالمي ولا عايي ووالن تهاليري سحرولا تهاليري wax kasta lagu sameeyay inta laga meeyay wala la dagaalamay wala weeraray guda loo qoro ku dhac ilkihiya ka jabay meeshan bira ka gashay ila saxaabi markii dam ilkiisu aga bixiyay bal waxaas wax ka daran xaaskiisa la caayay qofkan xaaskiisa markii la meesha ugu dambeysay waa Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق ولا إلى سبحانه وتعالى براها 10 آيات سورة النور وكبر مع ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم في انت اسلبها كل عضي ما نبي محمد انه اله نعبيه ما اهن والامتحان ما هو اله سبحانه وتعالى ايضا ونوغ شيغيب وقران وحيري وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ابن ادم وحا لغا يا وحنا نعبنتيه لكن خير كويه وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم حالغا وحنا جعشيد لكن دبو كويه ايدان فيري marka intaan dambe markaas dhigtaada ku jirto والله يعلم وأنتم لا تعلمون إله أك أذم أوجد إله أك أذم أوجد مركا كدر ستد بلاس مركا تراهد إلهي وحو يجي عليه هو يدي آبه إكوال مركا وحواي وحفي عن نيته والله يعلم وأنتم لا تعلمون وحكستوك ودعو إله أك أذم أوجد خير واي نبي نوحو نوشي إلهي هو يدي آبه ينوكاجي عليه كلنا قارا والدي قارنا ولي معه والد واتقانا هويدي اباه نفتودي u hureen hooyada waarta iyadoo baahanay siinaysa ilmaha waxay siinaysa taas macnaheedu jecel ay u qabto waa ilaahayna taas ka daran oo ka jecel yahay so marka dib kugu dhaco ilaaha og sababta kugu dhacday marka ku darsatid ilaahay hooyadii aabihii u jecel macnaheedu waxa khayr ku tahay waxa la sheegaa nin maalin meel abaar uu ku jiro uu ka tagay asiga iyo xaaskiisa iyo 3 caruur oo lahaa وإسرائيل مركي دحدا مرايين هل نيفي وتين ماشي وتجي جيلي لهاين هلكي جيل كا كدمay si u socdeen xaaskiisi caruurtiisu wuxuu ku yiri aniga si raadinaaye idinka meeshan si jooga meel warka wuxuu dajiyay oo saaxay buurar u dhawaayeen meel oo iska hoos deganayeen maamadii haday naag aan dhaho sometimes marka muxaadeynaaga dadka qaar koodana sheekhu naag ka dhigay naag daan dhaho daaminis ceeb iga ma ahay haday dhahdaan dhaho idin sheegaya maamadii marka ninkii caruurtu ku yiri caruurtu wuxuu ku yiri inta si jooga saddexdii meeshu aaga tagay ilaahay markuu wax yar ka tagay habeena la gaaray roob soo da'ay roob aad u badan soo da'ay ninkii marka waxa ugu horeeyo maskaxdiisa ku dhacay waxay ahayd caruurtii iyo saddexdii caruur iyo hooyadood meeshii aaga soo tagay meeshii joogaana waa meel buurar shalaalaad ama daad laga yaabo inuu soo galo roobna waxa soo da'ay oo caadi ahayn ninkii ma noqon karo toosh ama wuxuu haysta mal uu ku noqdo roob xuna da'ooyo geed hoostiisu isaga gabaday waagiya bariyay ninkii uu baxay meeshii uu tagay meeshii markuu tagay hooyadii ma joogto saddexdii caruurna ma joogan heblo soo qeylinay wax yar wuxuu arkay cunug xaggaas ku tuuran wuu tagay cunugii uu taabtay cunugii waa dhintay soo socday mid kale uu tagay midkii kale waa dhintay
suu raadinayo mar meel hadana wuxuu arkay hooyadii cunug yar oo isku dhagan fiir hooyada carruurta u jeceshahay hooyadii cunug yar oo isku dhagan oo dhinto arkay ninkii wuu naxay carruurtiisii iyo xaaskiisu soo qaaday gudu u qoday wuu duugay oo iska soo baxay hal geel uu raadinay wuxuu luus galay marka faamilkii iyo saddexdii carruur asoo soo socdo yaaban oo riye iyo run waxay kala tahay garala ayuu wuxuu arkay geelkiisii oo arkay uu ka dabcan wuxuu yiri cala laqal waxay ku dhamaanay geelkaaga u tag geelkii uu ilmuhum uu tagay geelkii marka haraantii ku dhuftay haraantidu ku dhuftay labadii in dhaxbartinkooda uga dhuftay ninkii labadii indhu beelay ninkii meel allaale meel uu aadamay yaqaano meel baadiyo taagan yahay suu u fadhi markuu wuxuu bilaabay inuu xoogo qayliya muslimiin waya meesha soo maray nin meesha soo maraya arkay wars maxaa kugu dhacay ninkii qisada aga sheekay markaas uu arintaada arin qariib way soo bax waxaan ku geynaa Baghdad aan ku geynaa Dimashq aan ku geynaa amiirkan ku geynaa waa soo baxeen markii loo keenay amiirku wuxuu yiri amiiro ninkan sheekadiisa dhageysa cajab waay ninkii uu aga sheekay amiirku wuu yaabay wuxuu yiri hal su'aal aan ku weydiinaa ماذا تحسون ما حد يريم ويساعده مركز وحوير مركه هرم مساعده حد ما حد يريم ويساعد والله رضا دريم ويا يوله قلبي هذا ودقيه يوله وح والول إيه هبا يرات ما جرت أميركا وحكويري وحاس كاجي واويس سد حدي عفورم لهات واويس حولها جي واويسي indhahaagina waa wahaysay and you telling me I'm happy say waxa ku dhacday markaas wuxuu ku yiri yaa amiir wallahi wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala sumari wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun ani maxaan jeclahay wada xaaskayga carruurtayda geelkayga waa jeclahay daasoo aga daba tagnay laakiin ilaaha saas doorto Soomaanaha wallahi raaliyan ka ahu dhax marka musiibo kasto kugu dhacda adduunyada macnaheeda ma ahan inuu ceeb ay ku tahay ama dhib ay ku tahay qaybta saddexaad oo keeno inay walwalka qofka ay ku dhacdo waxa waay adam alqanaaca qofka qanaaca inuu san lahayn waa ama rag ha noqdaan ama dumarka ha noqdaan wuxuu ilaahay ku siiyay ku qanaaca xadiis oo aad u qiimo badan rasuul sallallahu alayhi wasallam man ya'khudhu minni hadhihi alkalimat fay'amalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna wariyayga qaadanay hadalkan aan raba idin dhaho ku amal falaya ama baraay dad ku amal falo saxaabadu san wada joogan markaas yayga qaadanay shantan Abu Hurayra soo istaagay ana ya rasuulallah ana ka qaadan markaas ittaqil maharim takun abad an-nas wuxuu ilaahay ka xaraantimay iska ilaali qofka ugu cibaado badan aan noqonaysaa meel uu ku qortay tan labaad ahsan lil jaar takun mu'minan diriskaaga wanaaji qof mu'min aan noqonaysaa مالو كقرتي تنسدحات أحب للناس ما تحب لنفسك ذاتك اللي جعله وحا نفط هذا اللي جعشيت مالو كقرتي تنافرات وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس إلهي وحو كسي كقنع وحا نقنيسا قفك أوغو قنيسا قفك أوغو قنيسا نقنيسا تنشر دانس كرمين وحاواي ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب قصلك هبذنين هقصل معان قصلك هبدين قصلك بدن قلبي جو مذوبية نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا ميلا بدن وكحطلي وناقة دقاي قناعة الرضا إن أسكر دافنه قفك حدو اعتقاد وحي عندونك قادنا بوالي قري محل والولا محل والبهارة هديتها هاي مركا واسك إلالنا هدان صو خلاصيو والولك وحيالها أو بدن وكينا كو وحوا إيمانك وضعيفة هدارت والولنا اسكو أركتت عبادة بضي tan labaadna waxa waay qadarka qofka kuma qanacsano mu'mina inaad mu'min noqotid fiiri diinta islaamka saddex darajo waa muslim iyo mu'min iyo muhsin waa saasi u kala sareeyaan muslim waxa waay shantii salaad iska tukada waa qof shantii salaad tukada alxamdulillah waa shantii salaad tukada bishii ramadaan waa soomay laakiin dib markuu ku dhaco madaxu qabsana waa oyna waa cabaada qadarkii wili kuma uusan qancin mu'minka waxa uu ka sareeyo level ka sareeyo waa oo
shantiis intaan wuxuu ninkan sameeyay wuu sameeyay laakiin wuxuu dheeriya wax kastoo ku dhaco uu i'tiqaadsan yahay dhibaa gaari alxamdulilah qadar allah wama shaa facal alxamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kan saddexaad oo kasii sareeyana waxaa waaye muxsin waay oo qofkaas waaba labadiina uu isku darsaday cibaadadan waxaa waaye ilaahay wuxuu aaga baqa an tacbud allaha kaannaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak so saddexdaasa marka levelka loo baahan qofka muslimka waxaa loo baahan marka inuu alxamdulilah yaraa wuxuu ku siiyey haddaa ratid marka inaad farxad ku noolaatid walwal la-aan ku noolaatid walbahaar la-aan aad ahaatid arrimahan waa tiro badan yihiin laakiin saddexdaasa ugu muhiimsan haddaa isku aragtid iimaankaaga daciif ee gadaal isugu noqo